السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxa uu ka banaan marka ugu horeysa dadkii khayrkan abaabulay inan iyo inanba hooyo iyo caruurba dadkii khayrkan xidid iyo qaraababa dadkii khayrkan soo abaabulay ilaahay waafajiyay in lagu yiraahdo jazaakumullahu khayran ilaahay baa sacyigeena idinka abaalmarinaya allah idinka abaalmariyo waayo waxa weeyaan waxyaalaha markuu qofku dhinto ka haraya waa sadaqa jaariya haddana si khaasa buu nebigu masaajidada u sii tilmaamayo man banaa lillahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna qofka guri masaajid ilaahay dirta u dhisaa isagana guri baa jannada looga dhisaa guriga ilaahay jannada uga dhisayo lama qiyaasi karo lama xadayn karo gurigan adduunyadu waa xadaysan yahay waa intaasoo mitir iyo intaasoo mitir qofku intaas xadiis waxa uu ku sheegay nebigu way kaana maxfasa qataata masaajidkaasi hadduu yahay buulshimbireed la-eg yahay masaajid buulshimbireed la-eg ninka ilaahay darti u dhisa ilaahay isagana guriguu jannada uga dhisaa gurigaa ilaahay jannada uga dhisayo lama xadayn karo xad ma leh wuxuu ku jiraa maa laa caynun ra'at walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi albashar ilaahay dadka mu'miniinta wuxuu diyaariyey waxaanay ila arag oo dhigi maqal oo qalbi bani aadmi ku soo dhicin marka gurigaana allah u dhiso sadaqa jaariyana allah ha uga dhigo nuqdada saddexaad waxa weeyaan tacmiiru lmasaajid masaajidka marka la dhiso waa in la camiro weeyaan haddaanu tacmiir khaarijiya iyo tacmiir daakhiliya weeyaan tacmiir khaarijigu waa in la dhisaa oo la qurxiyaa oo la rijiyaa oo la nadiifiyaa waa tacmiirkii khaarijiga ah tacmiirka daakhiliguna waa in shanta salaadood lagu oogo oo uu noqdo meel wax laga barto oo wax lagu barto meel lagu ictikaafo meel diinta laga fidiyo oo uu noqdo macqalu dacwa iyo markasu dacwa marka labada khaarijiga iyo daakhiliga marka uu isla helo masaajidkaasi wuxuu noqonayaa masaajid ummadda iyo islaamka iyo diinta iyo dadka iyo dalka wax tara marka tii khaarijiga ahayd ilaahay waa inoo dhisay oo inagaa dhex fadhina tii daakhiliga ahaydna allah inoo waafajiyo inaynu dacwadna ku oogno tacliim ku oogno cibaado ku oogno khidmat lkhalqi iyo ikraam lkhalqina aynu ku oogno oo uu noqdo masaajid 24 saacadood shaqaynaya afartaas sifo marka laga helo ama masaajidkaasi 24 saacadood shaqaynaya marka dacwad laga helo oo tacliin laga helo oo cibaado laga helo oo khidmo laga helo khidmatu duyuuf khidmatu ulama khidmatu talaba afartaas sifo marka laga helo masaajidkaasi wuxuu noqonayaa masaajid 24 saacadood shaqeeya taasna intaasaan kaga baxaynaa dibadii ilaahay waa inoo camirey gudaana allah inoo camiro shukri badanna in laynaga helo oo magaalada maanta waxaa ku soo batay masaajida waa la dhisayaa waa in la shukriyo oo la mahadnaqo wasalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.